Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada muuqaalkan oo aanu kaga hadli doono taariikhda dowladdii Salaajiqada oo ahayd mid ka mid ah dowladihii ugu waaweynaa taariikhda Islaamka iyo weliba gobolka Aasiyada Dhexe. waxayna sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartay taariikhdii dowladdii Cabbaasiyiinta, dagaaladii Saliibiyiinta iyo weliba kuwii Bisantiiniyiinta. ku soo dhowaada channelka Kobciye, hana ilaawin inaad like, share iyo subscribe ku caawiso channelkeena si aad u daawato muuqaalo kale oo muhiim ah. boqortooyadan waxaa aasaasay qoyska reer Saljuuq oo ka tirsanaa qabiilka Ogos ee qowmiyadda Turkida. xilligeedii dahabiga ahaa boqortooyadana waxay maamushay dhammaan dhulka Iiraan, Afghanistan, sidoo kale waxay maamushay dhulka hadda loo yaqaano Ciraaq, Shaam iyo Anatolia oo ah dhulka ay hadda ka taliso dowladda Turkiga ilaa ay ka gaadheen daafaha magaalada Qustantiniya oo ah magaalada aynu hadda u naqaano Istanbul. qabaa'ilkan ayaa diinta Islaamka soo galay xilligii uu hogaaminayay Saljuuq ibnu Daqaa'iq sanadkii 960 miilaadiga. xilligaas wixii ka dambeeyay waxay la shaqeeyeen dowladdii Kaarakhanaadka taasoo ka talinaysay dhulka loo yaqaano webiga gadaashiisa, waxayna dowladdaasi u noqdeen cudud aad u weyn. balse dowladda Salaajiqadu waxay si rasmi ah u soo baxday markii hogaamiyahooda Daqralbeek, kaasoo uu awow u ahaa Saljuuq ibnu Daqaa'iq, uu dagaalo la galay dowladdii Qasnawiyiinta, taasoo markii dambe awooday inuu kala wareego magaalooyinka Marwa iyo Nisaabuur sanadkii 1037 miilaadiga, kuna beegnayd 429 hijriyada. isla sanadkaasi Daqralbeek waxa uu awooday inuu la galo dowladdii Qasnawiyiinta dagaalkii kama dambaysta ahaa, kaasoo loo bixiyey magaca Daandaqaan. dagaalkan ayaana dhabarka ka jabiyey dowladdii Qasnawiyiinta, keenayna inay si rasmi ah u samaysanto dowladdii Salaajiqadu. Daqral ayaa dib u soo nooleeyay inuu sii wado socodkiisa dhanka galbeed kadib markii uu xasiliyey mandiqada Khuraasaan oo hadda ka kooban qaybo ka mid ah wadamo badan sida Iiraan, Afghanistan iyo badanka wadamada Aasiyada Dhexe. Daqral waxa uu dagaal la galay dowladdii Shiicada ahayd ee Buwayhiyiinta, kuwaasoo xukunka Baqdaad iyagu gacanta ku hayay kuna dulmaamulayay khulafada Cabbaasiyiinta. suldaanka ayaa ka faa'iidaystay dalab gargaareed oo uga yimid khaliifkii Cabbaasiyiinta ee xilligaas Alqaa'im biamrillaah si uu Daqral ugu soo dhaqaaqo dhanka Baqdaad ugana saaro gacanta Buwayhiyiinta sanadkii 1055 miilaadiga, kuna beegan 447 hijriyada. kadib dhimashadii Daqralbeek sanadkii 1063 miilaadiga ama 455 hijriyada, waxaa xukunka uga dambeeyay wiil uu adeer u ahaa kaasoo lagu magacaabo Alab Arslan oo sii waday ballaarinta dowladda, dagaallo isdaba joog ahna la galay Bisantiiniyiinta oo sidoo kale loo yaqaano boqortooyadii Ruum ee bari. Arslan ayaana awooday inuu qabsado badanka wadamada Georgia, Armenia iyo Aasiyada Yar kadib markii uu guul weyn ka gaadhay Bisantiiniyiinta dagaalkii Malaadkard sanadkii 1071 miilaadiga, kuna beegnayd 463 hijriyada. waxaana dowladdiisa gaadhsiiyey xeebaha badda Iija oo ka mid ah badda dhexe ee aynu u naqaano Mediterranean-ka. Alab Arslan waxaa dilay dabayaaqadii sanadkii 1072 miilaadiga, kuna beegnayd bilowgii sanadkii 465 hijriyada mid ka mid ah kacdan wadayaal kaasoo lagu magacaabi jiray Yuusuf al-Khawaarsami. kadib geeridiisa waxaa xilkii la wareegay wiilkiisa Malik Shaah, kaasoo 20kii sane ee xukunka hayay gaarsiiyey dowladda heerkeedii ugu sarreeyey, isagoona sidoo kale furtay qaybo ka mid ah dhulka Shaam oo ay ku jirtay magaalada Qudus, taasoo uu kala wareegay boqortooyadii Faatimiyiinta. kadib geeridii Malik Shaah sanadkii 1092 miilaadiga, kuna beegnayd 485 hijriyada, waxaa dhammaaday xilligii awoodda militariyeed ee dowladda Salaajiqada, waxayna dowladdu bilowday inay si aayar ah u daciifto. dhammaadka xilligii Malik Shaahna waxaa soo baxay jamaacadii ama kooxdii la magac baxday Xashaashiyiinta, kuwaasoo waqooyiga Iiraan ka sameeyey khalkhal aad u badan. kooxdana waxay ahayd mid aad ugu takhasustay sida shirqoollada loo fuliyo, waana meesha ereyga Ingiriisiga ah ee assassin uu ka yimid. dowladdii Salaajiqadu waxay sidoo kale bilowday inay khasaaro kala kulmaan Saliibiyiinta oo soo weeraray dhulka Islaamka, waxayna u waayeen qaybo badan oo ka tirsan Anatolia iyo dhulka Shaam. Salaajiqadii weyneed waxay baaba'day sanadkii 1153 ama 546 hijriyada markii qaar ka tirsan qabiilka Ogos ay ku kaceen boqorkii xilligaas ee Axmed Sanjar, kadibna ay xabsiga rideen. wixii intaa ka dambeeyay dowladdii waxay u kala googooday qaybo yar oo ay xukumaan qoyska reer Saljuuq oo ay ugu cadcadaayeen Salaajiqadii Ruum ee Turkiga, Salaajiqadii Karamaan ee dhulka Faris, Salaajiqadii Ciraaq
iyo salaajaqadii Dimashq iyo Xalab ee dhulka Shaam. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal. intaas ayaynu kusoo koobaynaa muuqaalkeennii aynu kaga hadlanay taariikhda dowladdii ama boqortooyadii salaajaqada oo aad u kooban. fadlan ha ilaawin inaad like, share iyo subscribe ka caawisid channelka adoo daaraya gambaleelka digniinta.